بسم الله الرحمن الرحيم ان chapterkii sound waves ayaan waxaan ka maraynaa qaybihii u dambeeyay ayaan ka maraynaa chapterkii sound waves mawjadaha jabaqda ama hirarka jabaqda dhowr cashar ayaan ka sameynay chapterka haddana waxaan maraynaa lessonkii shanaad waxaan ku baran doonaa wax loo yaqaano Doppler effect waxaan ku baran doonaa Doppler effect saameynta Doppler marka ereyga Doppler marka magac waaye waa nin Australian man waa nin u dhashay Australia waxaana loo yaqaanaa wuxuu soo saaray xeer ama effect ayuu soo saaray marka saameyn sidaas marka waxa lagu bixiyay Doppler effect ayaan ku baran doonaa lessonka shanaad ee chapter sound waveska marka intaanan cashirka aanan guda galin ka hor horta maxaa loo yaqaanaa Doppler effect maxaa la in la fahmo waayo Doppler effect ninka lagu magacaabo wuxuu soo saaray waa isbedelka the change isbedelka ku dhaca pitchna waa kaga soo hadalnay waxaan dhahnaa waa the change of frequency waa isbedelka rakaadka waxa loo yaqaanaa pitch marka Doppler effectina waa the change in pitch waa isbedel ku yimaada faraqa produced uu soo saaro by a relative motion socod isku mid ah of source markuu source ama meeshii codka uu ka soo baxay iyo observer oo meeshii codka uu tagay ama qofka codka dhageystay ama codka uu helay ayaa iskoolad waxa loo yaqaan Doppler effect marka hadii lagu dhaho English ahaan lagu dhaho state Doppler effect maxaa leedahay Doppler effect waa the change in pitch isbedelka faraqa ku yimaada rakaadka uu soo saaray relative motion waliba socod relative ah of a source and observer kaasoo u dhaxeeya source and observer source waxa loo yaqaanaa meeshii codka sounding uu ka soo baxay observerna waxa loo yaqaanaa codkii qofkii helay ama meeshii codku ku dhacay waxa loo yaqaanaa observer marka ninkan wuxuu soo saaray Doppler effect guud ahaan wuxuu soo saaray tusaale markaan u soo qaadano gaari ambulance hada halka sawirka halkan waxa yaala gaari ambulance ayaalo marka gaariga ambulance-ka ka soo qaad inuu yahay wuxuu soo dayaa Soomaan cod markuu uu daaro kale codka uu shito markuu gaariga weyn markuu leeyahay oo kale waxa loo yaqaan codka markuu soo daanayo waa source waay marka source kaasi qofka maqlaya inuu yahay soo qaad sawirka meesha idin kaga muuqdo inuu yahay sawirka halkaas idin kaga muuqdo marka hadda marka gaariga ayaa socdo cod ayuu soo daayay marka gaariga markuu socdo codku soo daayay waxa loo yaqaanaa source moving waay macnaheedu maxaa waaye nin qofkii taagan gaariga ayaa dhaqaaqay gaariga markuu dhaqaaqay waxa u daaran codka ayaa u daaran oo macnaha wuxuu bixinayaa cod ayuu bixinayaa marka source moving marka qofkii taagan gaariga ayaa socda waaya marka qofka taagan waxa loo yaqaanaa markuu gaariga uu ku soo socdo waxa loo yaqaanaa observer ayaa loo yaqaanaa observer goorme waa markuu source uu socdo waay marka casharka marka laba qodob aan baran doonaa oo ah source iyo observer marka maxaa dhaanay gaariga ambulance-ka markuu socdo uu cod uu soo daayo waxa loo yaqaanaa source moving qofka taagan oo codka maqlayna waxa loo yaqaanaa observer ayaa loo yaqaanaa observer marka marna observer-ka ayaa socdo oo qofkii ayaa socdo waxa loo yaqaanaa observer moving ayaa loo yaqaanaa waxa taagan gaariga taagan markaas gaariga marka qofka markuu socdo observer moving Allah gaariga laakiin source-ka ayuu soo daay laakiin source-ka moving ma uu taagan yahay marka ninkan wuxuu soo saaray waxa loo yaqaanaa source iyo observer ayuu soo saaray tusaale oo kale ka soo qaad hadda meeshan ambulance-ka inoo yaala ka soo qaad inuu qofka uu ku sii socdo ninkan inta taagan inuu ku sii socdo ka soo qaad markuu codka uu ku sii socdo gaariga maxaan ku sheegnay wuxuu soo daayaa Soomaa hoonka ama wuxuu daartaa codka uu bixinayo ambulance ay bixiyaan markuu socdo weyn markuu leeyahay gaariga uu socdo gaariga waa source moving waay codkii ayaa socda hoonka kan meesha taagan waxa loo yaqaan observer-ka qofkii ayaa taagan oo meeshii macnaha codka dhageysanaya markuu source moving ku socdo uu qofka uu ku sii socdo observer-ku taagan yahay frequency-ga ayaa bata frequency-ga waa uu soo badan markuu gaariga tusaale xamal ka soo qaad markaad meel taaganta oo isgoos aad taaganta gaari markuu kugu soo socdo frequency-ga rakaadka codka waa uu badanaya kullama gaariga uu kugu soo dhawaado frequency-ga waa uu soo dhawaado marka frequency-gana iyo jabta dhan ayaa laga hadlaa marka frequency maxaa waaye codkii ayaa isku soo dhawaanaya marka codka markuu isku soo dhawaadana wavelength-ka wuu yaraanaya marka wavelength markuu yaraado oo codku uu soo dhawaado waxa loo yaqaanaa marka source moving marka
markaas marka waa markuu source markuu gaari markuu adigu kugu soo socdo waxaa loo yaqaanaa source-ga waa gaarigii adiga waxaa ta observer-ka maxaa badanaya marka frequency-ga ayaa badanaya marka frequency-ga hadduu batane pitch-ka wuu badanaya marka hadduu frequency-ga bato wavelength-ka wuu yaraanaya hadda u fiirso si sawirkan ka muuqdo had gaarigan qofka meeshaan ku sii socdaa laakiin maxaa u jeedaa wavelength-ka inuu yaraaday irbaac distance-ga u dhaxeeya labada wave waa uu yaraaday maxaa batay marka frequency-ga batay midkan sawirka dambe u fiirso qofkaani waxaa ka sii socdo gaarigii hoonka yeerina uu ka sii socdaa marka gaarigii maadaama uu yahay source moving observer qofka uu taagan yahane markaana frequency-ga yaraanayo wavelength-ka dheeraana marka distance u dhaxeeya labada tour way yaraanayaan maxaa marka wavelength-ka ayaa badanaya wavelength-ka dheeraanaya frequency-ga rakaadka ayaa badan marka gaariga markuu ka sii socdo wavelength-ka wuu badanaya ama wuu dheeraanaya laakiin frequency-ga ayaa yaraanaya markuu kugu soo socdana frequency-ga badanaya wavelength-ka ayaa yaraanaya marka sidaas ayaa Doppler effect loo yaqaana marka meeshaan marka Doppler effect marka waxaan ku baran doonaa case laba xaaladood ayaan ku baran doonaa ninka loo yaqaan Doppler effect uu soo saaray maxaa waaye marka koowaad waxaan ku baraynaa xaaladda koowaad source moving waaye maxaa waaye source-kii meeshii codku ka soo baxay shayga codka soo daayay ayaa socda marka source moving markuu shayga codka soo daayo uu socdo towards uu ku socdo qofkii taagan or ama away from markuu ka sii socdo waxaa lagu helaa qaacidadan ayaa lagu helaa qaacidadan waxaa loo yaqaanaa source moving ayaa lagu helaa goormee waaye waa source moving markuu gaariga uu socdo waaye kasoo qaad adiga oo kale markaad taagan tahay markuu gaariga kugu soo socdo waxaa loo yaqaanaa towards adiga ayuu kugu soo socdaa markuu gaariga uu ka sii socdo oo hoonka yeerinayn waxaa loo yaqaanaa away from markuu kugu soo socdo markuu ka sii socdo gaariga uu source ayaa uu soo daayaa sound waves sound waveskaas waxaa loo yaqaanaa marka source moving Allah marka waxaa lagu helaa qaacida lagu helo waxay tahay VF marka waxaan ku helaynaa calaamada kor ka saaran waxaa loo yaqaanaa waa macnaha waxaan ku helaynaa source-ka frequency-ga waxaad ku helaysaa frequency-ga gaariga oo codkii gaariga uu soo daayay hoonka waxaa ku dhufanaysaa speed of sound in air xabaaraha hawada codka aad ku dhufanaysaa waxaa loo qaybinayaa marka speedkii oo xabaaraha oo marna minus ay tahay marna plus ay tahay marka minuska iyo plus maxaa loola jeedaa marka minuska waxaa markuu gaariga uu kugu soo socdo waa minus waa micnaheedu maxaa frequency-ga badanaya markuu ka sii socdane waxaa isticmaalaysaa plus oo positive waaye maxaa frequency-ga yaraanayo wavelength-ka ayaa badanaya ayaa dheeraanaya marka guud ahaan qaacidada source moving-ka haddii lagu diro f-taas ayaad isticmaalaysaa maxaa waa source moving oo vs loo soo gaabiyo qaybta hoose ayaa wuxuu ku noqonayaa negative or positive waay marka minuska waa maxay waa markuu gaari uu kugu soo socdo waay waxaa isticmaalaysaa markuu waxaa source moving source-ka ayaa socdo gaariga uu kugu soo socdaa waxaa isticmaalaysaa negative markuu ka sii socdana waxaa isticmaalaynaa positive case kale waxaa loo yaqaanaa observer moving maxaa waaye gaarigii hoonka soo daaya ayaa taagan laakiin qofkii ayaa socdo mar gaariga hoonka ayuu yeerina wi ayuu leeyahay laakiin wuu taagan yahay laakiin marka ayaa socdo observer-ka yaabaa kasoo qaad adiga inaad tahay macnaha adiga waxaa kusii socdo gaarigii hoonka yeerina ayaa kusii socdo markaad gaariga hoonka aad kusii socoto frequency-ga adiga iyo gaariga idin dhexe wuu badanayaa markaad kasii socotana frequency-ga adiga gaariga idin dhexeeya waa uu yaraanayaa markaad gaariga kusii socoto gaariga uu taagan hoonka ayuu yeerinayaa ama wax ambulance oo kale waxa u daaran calaamadii ambulance-ta markaad kusii socoto adiga iyo ambulance-ta codka soo deysay frequency-ga codkaas iyo adiga idin dhexeeya waa uu badanayaa adaa usii socdo wavelength-ka ayaa yaraanaya markaad kasii socotana frequency-ga badanaya ayaa yaraanaya wavelength-ka ayaa dheeraanaya marka hadda inta sawirka sida hadda wadinka ku sharxa oo kale maxaa waaye hadda gaariga waa kana gaariga markuu kugu soo socdo maxaa waaye frequency-ga ayaa badanaya markuu kaasii socdana ama marka adaa kasii socotana wavelength-ka ayaa dheeraanaya oo u kala durdurqaya marka waxaa waaye long wavelength waa wavelength-ka gaariga marka macnaha uu kaasii socdo wavelength-ka ayaa dheeraanaya frequency-ga ayaa yaraanaya markuu gaariga kugu soo socdana maxaa waaye wavelength-ka ayaa yaraanaya frequency-ga ayaa badanaya marka and the frequency hit by rakaadka ama jabaqda uu maqlaayo observer moving markuu qofka uu socdo laakiin uu taagan yahay source-ka codka soo deeyay markuu taagan yahay waxaa lagu helaa qaacidada isla qaacida isticmaalaya marka data maxaa isticmaalay source moving-ka
bala positive or negative qaybta hoose ay marayaan waxa loo yaqaanaa source moving markaana positive or negative qaybta kor ay soo marayaan waxa loo yaqaanaa observer moving ayaa loo yaqaanaa marka case saddexaad u dambeeyo waxa loo yaqaanaa observer and source moving labada markay dhaqaaqayaan maxaa waaye adigii waa socotaa gaarigan wuu ku socdaa marka labadooda markay socdaan waxa loo yaqaanaa observerkii qofka codkii ku dhacay dhegtiisa iyo source-ka codka soo saaray labadu waxay sameeyaan moving marka waa labadii qaacido ee la isku daray aan isticmaalayna marka maxaa lagu dhahay when an observer and source moving marka labadooda ay socdaan waxaa la isticmaalaa waxaa lagu dhahay marka when an observerkii iyo source-ka codka soo daanaya towards each other markay isku soo socdaan and away from each other markay kala socdaan labadoodaba waxaa lagu helaa qaacidadan marka qaacidadan tan inoo qoran waa observer moving waaye sawirka ayaan ka qalday laakiin guud ahaan maxaa waaye waxaa lagu helaa v-da markay qaybta hoos tahay waxaa lagu helaa kan waxay noqonayaa v minus or positive ayuu qaybta hoos ka noqonayaa oo lagu dhuftay v oo waxay noqonayaa vs waa negative or positive example ayaan ku arki doonaa laakiin kan qaacidadan ma ahan marka labadoo marka maadaama labadoo la isku daro uu yahay waxa inoo qor oo kaliya observer waxaan noqon moving marka source moving ana source moving waxa isticmaalay qaybta hoose ayaa waxa isticmaalay isla qaacidadan source moving ayaa qaybta hoose wuxuu noqonaa negative or positive ayuu qaybta hoose ayuu ka noqonayaa marka waa kana marka halkan labada qaacido la isku daro waa kana marka source and observer moving mid ka idin kaga sheekeynay waa kana qaacidadan lagu helaa marka maxaa waaye labadoo markay socdaan waa ama ay kala socdaan ama markay isku socdaan marka qaacidada kore maxaa ahay qaacidadaas kore waxa isticmaalay waa observer moving waa source-ka codka soo deynaya ayaa taagan observer-kii codka macnaha helay receiver-kii ayaa socda markaan maxaa waaye waa source moving waaye maxaa waaye observer-ka ayaa taagan source-ka codka soo deynaya ayaa socda marka labadooda marka la isku daro qaacida hal meel isugu keenana waxaa loo yaqaanaa source and observer moving marka v-da calaamad dash kor waxaa loo yaqaanaa waxay u taagan tahay observer frequency ayaa maxay u taagan tahay f-ta caadigana waxay noogu taagan tahay actual frequency rakaadka caadiga uu source uu soo deynayo ama observer uu macnaha uu soo deynayo saddex v-da waxay u taagan tahay velocity xawaaraha ama kaynaanka sound wave ee jabaqda vo-da markay raacdo waxay u taagan tahay observer moving waa ama observer velocity waa vs markay tahane waxaa loo yaqaanaa observer velocity of the source-kii kaynaanka uu soo daayay ayaa u taagan tahay marka example saa qaadanayna example 1 muxuu ku dhahay train ayaa moving wuxuu ku socdaa speedka xawaaraha trainku waa 40 meter per second trainka marka blows wuxuu afuufay ama wuxuu yeeriyay it is whistle steering ayuu yeeriyay ama honkaasoo which has a frequency oo wato ama uu leeyahay 500 oo hertz marka waxaa laga rabaa marka su'aalahan laga rabaa waxa waaye fine waxaa soo raadaysaa lagu dhahay marka the frequency rakaadka heat by uu maqlay stationary observer qof meel taagan frequency uu maqlayo ala rabaa in la soo saaro maadaama trainka speedku uu ku socdo waa 40 meter per second seeri honka ayuu yeeriyay honkaas uu soo saaray frequency 500 hertz waxaa la rabaa marka inaan soo raadino frequency-ga ama rakaadka uu maqlayo stationary observer qof meel taagan rakaadka uu maqlayo as a train markuu trainka approach uu kusoo dhawaado ama recedes markuu kasii socdo marka trainka markuu kusoo dhawaadana waa laga rabaa inaan soo raadino trainka markuu dhaaf uu kasii socdana waxaa la rabaa inaan soo raadino speedka xawaaraha habadan waxaan u qaadanaynaa inuu yahay 345 meter per second marka waxaana la siiyay v-da oo aysan 345 meter per second waxaana la siiyay frequency-ga oo ay tahay 500 hertz codka frequency-giisa iyo source velocity-ga oo 40 meter per second waxaan laga rabaa inaan soo saarno f-tana la frequency-ga macnaha source moving maadaama uu yahay frequency-ga inaan soo raadino marka waxaan soo raadinaynaa markuu trainku qofku ku soo dhawaaday train marka qaacidada waxaan isticmaalaynaa f waxaa lagu helaa f oo lagu dhiftay v oo loo qaybshay v oo laga jaray vs ayaan isticmaalaynaa marka f waxaan haysanaa 500 speedka waa 345 aan haysanaa oo loo qaybshay isla v-di 345 waxaa ka jaraynaa 40 meter per second oo xabaaraha uu ku socdo trainka marka labada hoose ayaad kala jaraysaa 345 waxaa ka jaray 40 waxaa soo bixay 305 500 waxaa ku dhufanaysaa 345 kadib waxaa u qaybinaysaa 305 marka waxaa soo baxaysa 566 oo hertz marka frequency-ga markuu trainka uu qofku ku soo dhawaanayo waa maxay 566 ayuu noqonayaa waayahay
mid labaadna markuu trainku u dhaafayna maxaa lagu helaa isna meeshii negative-ka ayaa kaliya waxaa ka dhigaysaa positive ayaad ka dhigaysaa waxaa leedahay isla qaacida isticmaal frequency-ga waxaa haystaa 500 hertz uu soo saaray hoonka speed-ka waxaa u qaadataa 345 meter per second waxaa u qaybinaya 345 oo video ah oo lagu daray 40kii oo speed-ka uu ku socday trainka marka hooseeyaha waa isku daraysaa waxay noqonaysaa 385 korayaan isku dhuf 500 waxaa ku dhufanaysaa 345 kadib waxaa u qaybinaysaa 385 waxaa ku soo baxayso 448 oo hertz ayuu noqday marka maxaan ka fahmaynaa frequency-ga markuu trainku ku soo dhawaaday wuxuu noqday 566 markuu ka sii socdana wuxuu noqday 448 marka meesha maxaa ku cad markuu trainku uu ku soo dhawaaday inuu frequency-ga uu batay markuu trainku uu kasii tagana inuu frequency-ga uu yaraaday 448 ayuu noqday markuu ku soo socdana wuxuu ahaa 566 example-ka labaad oo book uu qoray wuxuu ku dhahay a boy wheel ayaa moving wuxuu ku socdaa 6 meter per second xabaaraha wheelka waa 6 meter per second towards wuxuu ku sii socdaa haddana uu ka sii socdaa stationary observer inuu yahay ka soo qaad train inuu yahay shay taagan shay ayaa taagan wheelku uu ku socdaa wuuna ka sii socdaa marka wuxuu yeeri whistling frequency shayga marka meesha taagan stationary taagan wuxuu soo saaray frequency oo ah 650 hertz ayuu soo saaray fine waxaa soo raadinaya marka frequency rakaadka when he approach wheelka markuu ku soo dhawaaday ama uu ka sii socday source-ka codka meesha ka soo daa tusaale inuu yahay shayga stationary observer inuu yahay gaariga markaan gaariga ayaa taagan wheelka ayaa socda wheelka ayaa source moving ka ah marka maxaa observer moving ka waay marka waxa taagan inuu yahay gaariga marka waa source-ga waay laakiin wuu taagan yahay waayahay marka video-na u qaada 340 markaan waxaa waaye wheelkiyaa socdo observer moving waay waxaa taagan stationary-ga waa source-kii codkii soo saaraya gaariga ayaa taagan maxaa yeesnaa marka speed-ka waa 342 ana la siiyey iyo frequency-ga 650 hertz VO-na waxaa yeesnaa 6 meter per second waxaana la diray marka observer frequency-na soo raadin koo maxaa raadinaynaa qaacida waxaan isticmaalaynaa wax loo yaqaano approaches wheelka markuu ku soo dhawaanayo waxa loo yaqaan gaariga marka waxaan leenahay qaacida isticmaal f waxaa haystaa 650 hertz marka waxaa isticmaalaysaa qaacidadaas waxaa leeyahay 342 speed-ka waxaad ku daraysaa wheelka xabaaraha uu ku socdo 6 meter per second kadib waxaa u qaybinaysaa 340 marka intaas markaa calculation geliso waxay noo soo baxayso 661 oo hertz waa goorme waa wheelka markuu ku soo socdo gaariga taagan ee hoonka yeerinaya marka frequency-ga ayaa batay marka maxaa waaye waxaad raadinaynaa approach wheelka markuu ka sii socdo gaariga hoonka yeerinaya maxaan ku helaynaa isla qaacidada isticmaal meesha positive-ka negative-ka dhigaysa oo sareeyaha waxaa leedahay marka f waxaa nala siiyey 650 hertz waxaan ku dhufanaynaa 342 oo laga jaray 6 meter per second waxaan u qaybinaynaa 342 xabaaraha habada intaas markaa calculation gelin aan soo xisaabino waxay noo soo baxaysaa 639 hertz markaan maxaa waaye gaariga macnaha wheelku wuxuu ka sii socdaa gaariga hoonka yeerinay marka daay uu ku soo socday frequency-ga batay wavelength-ka yaraaday had laakiin gaariga wheelka ayaa sii socda gaariga ayuu ka tagay oo hoonka yeerinaya frequency-ga ayaa yaraaday wavelength-ka ayaa dheeraaday waya example saddexaad try way midkan idinka xaliya soo fiiriya book ayuu idinku qoran yahay labada qaacida isku darsanaysaa waxa isticmaalaysaa labadood waa example-kan wuxuu sheegayaa labadaba in ay socdaan source moving iyo observer moving waxa isticmaalaysaa marka equation-ka isticmaalaysaa marka equation-ka isku qaban kartaa waxa isticmaalaya kow qaacida isku soo xalay then waxa isticmaalaysaa marna positive kore iyo waxa isticmaalaysaa negative-ka marna waxa isticmaalaysaa negative kore iyo waxa isticmaalaysaa positive course macnaha waa kala geynaysaa macnaha kow waxa soo saaraysaa source waxa isku isticmaalaysaa positive-ka iyo negative-ka hoose marna waxa isku isticmaalaysaa negative kore iyo positive-ka hoose si marka labada qaacida ay u soo saaranto intaas ku keenayna insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.